هذا كورا وحلا يدك دد هير هبارة كجرا مكتة نم شيخا وكو عدي دد نارتي هي جنة وشرح سوري جنة ساسواي قبو يحور العين وبيال مارت خمر العبا يعانو يملب الدنيا ومالان كل الهين ومالان بل نارتنا كورنو يرا سو نارتنا ورم ودب وهلعايه وبلايه وطبال و markuu yiri anigu heer feeroodana oo kalbaari aan qabaa naarta iroon yiri labadooda hadana hore dareenku waa hal habaaran waa meel qabow ma bagili kara ku meel qabow baan adduunku u nacdo marka waxa waaye dad saasa jira hala yaabin marka kaas hadda afka ka sheegay kuwa ficilku galaya jira oo wixii ilaahay uu ka carooyay kaliya rabaan meel ma oo qadbay meel u socdaan mogtaa ma haasa dad sugaysa ala kulli xaal wax kasto naftu nacabta lagu hareeray وحاكم إذا وقت يقبل لجرة صلاة حي على الصلاة حي على الفلاح مقول يراد مؤذن إيش عبد الله يدك ويران وقتين دتك قاركود أذنك مقول مغلان لنا عاص هورو كدالي بك قدوم يا من كليو قدوم يا صلاة لو كعاية وابا جانس إنه إسقديو كذا خليه صلاة ما جرت ولا ساكع ما قال سجدت ما بيقانين بقى وإبليس مقت وحكف الله يقول سجود يا مقت سجود للرسول ديده مركب ويسك إبليسية يقول أسكت سعود لكن ضد بني آدم وإلهي بأم سجودان بل لا يركعون ولا يسجدون ما بيقانين فذي إبليس كل عضو كلا كل عضو علماء وحي الله إن إبليس بيقول لي السجود معويري أسجد لمن خلقت الدين ولا حد كأبورتي لو من سجوده هو رساوى إلهي وكاف علاه فيري تارك الصلاة كان وحى لي رواء إبليس وكلاته محايا لو وحي الله هاي وحن فراكو هاي ولا أمة جديد إذا الله يدين الله ورحمة الله يساس ولا ها مال يرو لوجي هند بردا يا سفر عن خسي جرا سعد قبوق انا جرا سن سجودا بيان كجرا كرايه مسؤول قالوا مال والبا وحيغا ان اسكا ترتر تفلتك اسكا سيحلها يقول ان جنسيس ورما اسكا سيو هبين ما اسكا دحجرو marka waa un iblis marka wax farqi uma dhaxay walidalika nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam taariku salati ma'a iblisa ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay ibn khalaf taariku salat wuxuu ku mareegay aakhir mugla tago fir'aun iyo haman iyo qaaruun iyo ubay ibn khalaf ku mareegay afartaas oo meel isla galayaan hadda u malaynayso inuu ardiis sahlantaa culimada mufassiriintu waxay yiraahdeen ama shaarixiinta xadiidka ninka salaada uga taga xukun iyo madaxtinimo jacayl ama madaxtinimadii uu ku fadhiyaba oo ku mashquula maarata kuraasta iyo waxa uu shaqeeyo waxaas oday fircoon ay la joogayaan leeyahay nimanka muluugta iyo odayaasha waaweyn oo salaadaba ay ugu dambeysay mugay kursiga ku fadhiistaan fircoon ay ku mareeg noqonayaan kuwa shaqaalaha iyo funzunaariyaha iyo waxa la yiraahdo iyo madaxda dhexdhexe hamaan waxay uga tagayaan madaxdiyo isleeyahay adoog madaxweynaha iyo boqorkii yowsan ku arkan inuu dukaan isugu ma dukadee nin madaxana wuxuu ugu nicib yahay wala xusuus sameey qof sameeyay asoo salaadu ka dhaafa door madaxiisa isaga dhaafa asoo wuxuu isaga daba orda birgoodan soo ugu khidmeelaha u rali gilla waag taagan yahay waag suran yahay suran in la yiraahdo qabta meeshan isaag marka ninkaas asaga asagona hamaan oo soo fadhiisaha wada hamaan qaaruun wuxuu ahay ganacsato weyn oo ahay hadda ganacsiga bariyan waa loo badan yahay si fiican dhigta loogu taagatan waa khatar maalkiisu ku mashquulsanay inta ka soo gadi hadii asraad aado ama dukaanka xirto ama waxaan ama laga dhaca ama halkan kula jooga waxaan intaad maqanta wixii la jab ku shubta adeem ogide ama lagu dabamara ama suuq ka maartay suuq madow ku dhaca adduunyo jaceelun ay uga tagay waa qaaruun ubay ibn khalaf wuxuu ahaa la yireen beero iyo xoolo lagu bileeyay beero badan meel walba iyo ganacsi ugu dareema maalin walba qaafishiis waxay isu dhaafaysaa la yiri Yaman iyo Sham marka oday inkaarano odayaasha nabiga nabi jira sallallahu alayhi wasallam malcuun oo ahay ilaahi maalintii badar u dhigtay dhiig u daray marka ninkaas asaga ahna xoolihiisi meega badnaay ayuu uga tagay ilaahi islaamkiisa diintiisa tawxiidka iyo salaada afartaas marka taariku salaadka usuguna ama kursi ku mashquula ama madax u shaqayntiis ku mashquula ama u dagaalankiis ku mashquula ama ganacsi ku mashquula ama xasad ku mashquula waxa soo dhan waxay soo galayaan nimankaas ku mareegihiin ala kulli xaal waxaan soo aadaynaa marka inuu jannaarta galayana naarta inuu galayana ilaahay quraanka wuxuu noogu sheegay wad ogtiin aayada waxa la yiri markii ahlu naarta lagu shubo malaa'iktu weydiinaysaa naarta mugay galaan naaraha ugu daran kamid oo saqara la yiraahdo mugay lagu shubo oo ugu kuleel badan waxa la weydiinayaa ma salakakum fi saqar war saqar maxay idin soo galiyay bal meel kale ba aad gashinay hatta naarta kala daran magta waxay leeyeen qaalu waxay yiraahdeen ahlu naarka lam nakum min al-musallin ma duka jirin salaad la'aan ahayn taariku salaad inuu san khayr lahayn kiiska ugu horeeyo oo naarta soo galeen waxay ku sheegaan inay salaad la'aan ahaayeen